الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحنا أدقوا مهنقيا إلهي سبحانه وتعالى عافماتك إيا نبض إيا قروح ذا ما أنت عين كتشوبني نسي ما هذا إلهي كدو وحنا مهنقيا ورياش قيمها له runtii soo booqday ee I weydiiyey inaan ka jawaabo hadalkii xildhibaan xasan shaar uu yidhi marka hore rasuulku calayhi salaatu wassalaam min tanabbu'aatih waxyaalihii uu ka sii waramay ee ka mid ah mucjisaadkii rasuulka calayhi salaatu wassalaam سيأتي زمان يصدق الكاذب ويكذب الصادق ويخون الأمين ويؤتمن الخائن ويتكلم في أمر الناس الرويبضة وما الرويبضة يا رسول الله التافه الذي ليس بالشيء وحائما دون أبو رسولك عليه الصلاة والسلام واختي يصدق الكاذب قفك بينت الله أن بضحي لرميسته ويكذب الصادق قفك رنت شيغنا لورن دونه بينالي ويخون الأمين قفك آمن كأنا لورن دونه خائن ويؤتمن الخائن كيوم طوق خائن سنان الآمن دونه ويتكلم في أمر الناس الرويبضة وأمد أفهير ونقن دونه وحلو يقال الرويبضة وما الرويبضة يا رسول الله رسولك الرويبضة لويدي التافه الذي ليس بشيء وقفك عن وحبك حشول أي رسولك عليه الصلاة والسلام ولا ليال waxaan doonay inaan ka jawaabo horta marka hore waxaan u mahadnaqayaa dad badan oo aad u badan oo hablo iyo inamaba leh oo difaacay hadalkii ka soo yeelay xildhibaan xasan shaar jazaakum allahu khayran xaqii baa difaacdeen waayo kilibka laga jawaabayay wuxuu ahaa kilib xaqu dirir ayuu ah oo ummadda oo dhan ku wajahan ayuu ah xasan shaar xildhibaankaasi wuxuu sheegay in 2 bolok degdeg laygu farsameeyey isaga iyo qayrkii oo markii aan xanuunsaday lay keenay dhagdhag laga siiyey ilaa airportkana ay geeyeen subxaan allah walciyaadu billaah xildhibaanka anugu waqtigii keliyaha layga soo bedelay imaaraadkan joogay markii aan hargeysa ka tegay ciidamay raacin keligay baan ahaa waayo xanuunkayga cidiba may garanayn imaaraadka markaan tagay ayaa lay sheegay keliyahaygii inay fadhiisteen muddaan joogay halkaasaa dialysiska laygu sameeyey halkaasaanan ka baxay wax baahiyoo ii haysay in runtii waxa weeye waxaa ummadda ka dhexeeya aniga lay iibiyo ama aan dadka qaarkood weydiisto may jirin alxamdulilaahi rabbi alcaalamiin wajacliina naftayda ka waramo oo dad badan oo khayr badan baa ka waramay waxyaalaha in badan aan kala hadlay xukuumadaheenii la doortay kuwii hore iyo kuwa maanta jooga maantana kala hadlana waxa weeye cadaalad sinaan iyo hantida ummadda in dadkooda loo ilaaliyo waana taanu in badan dad badan ku kala gedisannahay ee dad badani ay dhibsadaan waqtigaasi aan baxay aqoon bay ismaanu lahayn xildhibaankana aqoonta aanu isu leenahay inaanu meelaha xabaalaha ee guud ee dadka lagu aasayo odayaasheena iyo marka cidi dhimato maadaama dadku dad muslimiin oo wada ehela ay yihiin inaanu dhakada iska salaano mooyaane iska daa inaanu dhul weydiistay iska daa inuu dhulii soo iibiyey iska daa inuu lacagii keenay iska daayo xataa 2 marid weligii maan wada fadhiisan waxba kama jiraan qofka muslimkiina hadduu cid u adeegayo
inuu farsamo ku daro hadalka uu sheegayo ayay ku habboon tahay. badin maayo. waxaa kaloo aan dadkeena kala hadlaya waxa diiwaangelinta iyo doorashada aynu u samaysanay in runtii isbeddel aynu keenno inagoo farteena wax ku bedelayno, inaynaan isdilin, qofkii damaca leh inaan dhibaato dalkeena ku dhicin, laakiin ninkii doonaya uu soo banbaxo meeshaasi oo la doorto, kii aan la dooranayna aan la dooran. waxaan leeyahay war dadkiina wanaagsan ee aqoonta leh ee kartida leh hortadii isdiiwaangeliya wixii aan isdiiwaangelino ka qayb qaato doorashada. isbeddelku halkaasuu ka imanaya. si dadkii wanaagsanaa ee diinta lahaa ee qiimo lahaa ee kartida lahaa ee khibradda lahaa inuu soo saarno. kaarhka hala qaato footinka, hala isdiiwaangeliyo dhib kastoo ay leedahay. doorashadana ha laga qayb qaato. dadka ay khusaysana doorashadu wakhtigeeda ha ku dhacdaanu leenahay. aada iyo aad baa u mahadsantihiin. wajazaakum allahu khayran. mar labaad waxaan u mahadnaqayaa dadka khayrka badan leh ee xaqudirirka ah ee isbedelada soo socda ee runtii aynu saadaalinayno ilaahaynu baryayno inay inoo wanaagsanaadaan ka qayb qaadanaya. wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu.